السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج أرمى بالشدة وطن في السويدن. سوم سويد تي في عبد القادر سلو أما صحفي سلو وحلو جرى وقت الدولة شوين في السويدن حزبية كتر تماين وحقيب كصومالي بدن ووطن كولن كوضع شرحان قبل هذا عاصمة دبا حزبية سنتر بارتيات قيب كا حزبية ترتماي وحكو جرى قالين لطيب oo ah mudane Soomaaliyeed oo u sharaxan saddex qaybood baarlamaanka Sweden kommunalka iyo Landstinga dhamaantood ayuu u sharaxan yahay haddaba saddexda qaybood kaga jiro iyo boosaska kaga jiro isaga noo sharxi doono qaabka loogu codeyn doono waana gobolka Skåne magaalada Kristianstad haddaba qayb walba oo Soomaali asaas ayaan wareysan doonaa soo dhawow mudane qalin la dayib noo sharax qaybaha ku jirto iyo qaabka lagu cadeyn karo annagoo ugu baaqayno Soomaalida inay taageeraan isuna codeeyaan doortaanna qofkii wax uu qabanayo gobolka Skåne iyo agagaarkiisa iyo meelaha lagaga codeyn karo soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegaystayaal baan kuu salaamayaa. waxaan u malaynayaa inaad ka dharagsan tahay in 13 bisha sagaalaad ay Sweden ka dhici doonto doorashada dalka oo dhan. dhegaystow, haddii hadalkii ku soo gaadho, ma aha doorashadani doorasho la kala dooranayo oo keliya shakhsiyaad ama xisaab. waa doorasho lagu jaangooyin doono mustaqbalka Sweden sida ay u ekaan doonto 4 sano ee soo socda. 4 sanayna soo dhaaftay Sweden waxay ku jirtay qas qalalaase iyo cunsuriyad iyo nacayb cirka isku shareeray oo aan taariikhda Sweden horay oo kale uga dhicin. waxaan aaminsanahay inaadan adiguna rabin Sweden inay ku sii jirto 4 sano oo qalalaasa ah ama mustaqbal dalka ka luma ah. sidaas la ajligeed waxaan kaa codsanayaa 13 bisha sagaalaad inaad codkaaga dhiibato kuna booriso asxaabtaada iyo dadka oo dhan ee codeeyaan. magacaygu waa qalin la dayib, waxaan ku noolahay magaalada Kristianstad ee koonfurta waddankan Sweden. waxaan ahay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka iyo gobolka Region Skåne. siyaasadana ku soo jira muddo 25 sannadood ah. waxaan ka soo qabtay xilal kala duwan ilaa aan ka gaadhay gudoomiyaha howlaha guud. haddana aan ka hayaa xilal kala duwan. dhegaysta, waxaan u taagnahay doorashada sanadkan 2026 oo aan uga taagnahay 2 goob doorasho. goob doorashada koobaad oo ah waqooyi bari Skåne laga bilaabo Ängelholm ilaa Tomelilla. ta labaad oo aan uga taagnahay magaalada Malmö. ta koobaad ee waqooyi bari Skåne waxaan kaga jiraa 3 doorashada nambarka 3aad qalin la dayib. tan magaalada Malmö waxaan kaga jiraa 25. waxaan rajaynayaa inaad isiiso taageeradaada 13 bisha sagaalaad si aan uga wada midayno ama u hirgelino ahaanshaha ah in aan iska dulqaadno dowladdan hadda dalka ragaadisay ee 4 sano ku ragaadisay nacaybka, kala qaybinta iyo dad muwaadiniin oo badan in maalin walba dib loo geysto. ha noqoto kuwa la tarxiilo, ha noqoto kuwa siyaabo kale mataqaana loo faquuqaba. waxaan filayaa cududeena haddii aan isku geyno inaan gaari karno wax walba oo rabno. ha moogaan marka haddaba in aad ugu hiiliso codkaaga qalin la dayib oo ka sharaxan waqooyi bari ee gobolka Skåne oo ku jira nambarka 3aad, magaalada Malmöna 25 kaga jira xisbiga Center Partiet. aad iyo aad baad mahadsantahay muwaadin. waxaad sidoo kale muwaadin booqan kartaa haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato doorashadayda, qofka aan ahay, khibradayda, waxa aan rabo iyo
hamiga ama higsiga siyaasadeed aan leeyahay waxaad booqan kartaa mareegtayda internetka aan ku leeyahay taasoo ah www.qalinledayib.sa www.qalinledayib oo isku xiran .sa halkaas waxaad kaga booqan kartaa saad igu codayn kartid su'aalaha ama arrimaha muhiimka ah doorashadayda iyo waxyaabo badan oo ku saabsan murashaxnimadayda waxaan rajaynayaa inaad booqatid af Soomaalina waad ka helaysaa macluumaad ku qoran waad mahadsan tahay dhegeysta